xaalada halisa ayaa ka dhex jirta dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowladda Itoobiya nin walbo nafta nabi umada ayay markan maraysaa abi iyo sidoo kale cagjar amar weyn oo abi ka soo baxay oo Soomaalida ku aadanaa cagjar ayaa diiday haddaba xaaladdu way adag tahay markan meeshii ugu adkayd ayayna maraysaa wararkii ugu dambeeyay saxbiyaan sidee halkan lagu gaari karaa maxay tahay waxa ay isku hayaan abi iyo cagjar khilaafkooda cirka ayuu isku sii xiraya maalinta ka dambaysa xaaladda Itoobiya way cakran tahay dagaalkii waa uu xoogeystay jabhaduna way laba jabaarmeen wararkii ugu dambeeyay saxbiyal barnaamijkeena ku eegi doona oo aynu faahfaahin doona halkan oo muuqaalka TV muuqaalka laagsa oo sheergalay sidoo kale wixii aragtiya qaybta hoose ee comment-ga ayaad inoogu reebi kartaa soo dhawaada saxbiyal Mustafa Cagjar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waa hogaamiyaha dowlad deegaanka waxaana uu saaxiib dhow la ahaa ninka la yiraahdo Abiy Ahmed laakiin sheekadu way soo dhaaftay saaxiibtinimo maanta ayay is hayaan labadooda waxaana uu si toos ah u diiday amar ka soo baxay Abiy Ahmed oo ku aadanaa in dhammaan Soomaalida hubka laga dhigo oo la geeyo xerooyinka ciidamada loogu talagalay kuwaas oo la sheegay in xitaa banaanka loo fasaxi doonin Cagjar waxa uu leeyahay ciidamada hubka laga dhigo waan ogolahay laakiin hala fasaxo oo guriyooda ha aadaan waxa uu diidan yahay qarashkii waqtiga ku baxaya maadaama isagu laga rabo wax walba oo ciidankaas ku baxaya abina waxa uu leeyahay haddii ciidamadan la fasaxo waxa imaan kara jabhado hubaysan inay abaabulaan hub la siiyo ay dalal shisheeye gacan ka helaan kadibna ay bilaabaan inay jabhado ahaan uga dagaalamaan dhulka Soomaalida ama xitaa ay ku biiraan Soomaalida dagaalka kula jirta canfarta ee galbeedka gobolka City iyo dhulka miyiga ah ku sugan arrinkaas ayaana cabsi weyn ku abuuray Abiy Cagjarsa waxa uu leeyahay waxba igama gelin haddii ay hub qaataan waan la dagaalamayna waana aan iska dhicin doonaa laakiin sheekadu halkaas ma jirto waxa la leeyahay waa dhibaato weyn iyo dhib weyn oo aanu suuragal ahayn in laga aamuso qorshaha ugu muhiimsan waa in isbedel weyn lagu sameeyo dhinac walba oo Itoobiya ka mid ah Abiy qorshihiisu waxa weeye Itoobiya midaysan kana amar qaadato inuu helo Soomaalidu ayaana ugu horeysa waxa qorshuhu yahay in amar ahaan ay go'aano maqlaan ama ay amarka ka qaataan laakiin isagu waxa uu leeyahay suuragal ma aha in annaga oo taagan dhibaato ay dhacdo isla markaana aan ka aamusno go'aan walba oo annaga aan ugu talagalnay isla markaana aan u rabno in ay beel weyn qayb ka noqoto isla markaana aan u diyaarino haddaba qorshaha weyn ee ay ku doonayaan dhinacyadu waa wax ay ku rabaan isbedel siyaasadeed oo weyn in ay kaga muujiyaan guud ahaan iyo sidoo kale qayb ahaanba colaadda Itoobiya ka taagan dhulka Soomaalidu inta badan dagaal ayaa ka dhaca laakiin marka loo eego qowmiyadaha kale iyo deegaanada kale ee Itoobiya waxa uu ka mid yahay dhulka ugu ammaanka badan uguna xasiloonida badan marka qayb ahaan loo eego arrinta la xiriirta colaadda iyo dhibaatada badan ee ka taagan Itoobiyada qaybaheeda kale way saxbiyal wararka kale ee Soomaalida la xiriira ayaynu eegeynay al-shabaab ayaa weerar beegsi ah ka fuliyay qaybo badan oo kamid ah gudaha dalka Soomaaliya howlgallo waaweyn ayaana socda waxaana wararku ay sheegayaan in howlgalladan lagu baacsanayo al-shabaab ay dowladda Soomaaliya si laba jibaarayso maadaama howlgalladu ay yihiin kuwa aad u weyn oo lagu doonayo in lagu ciribtiro dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada ADMIS ayaa la sheegay in howlgalkan ay qayb ka ahaayeen oo looga hortagayay isla markaana la rabay in lagu baabi'iyo dagaalamayaasha shabaab faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxay howlgal qorsheysan oo ay ciidamada howlgalka ADMIS ka sameeyeen qaybo badan oo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka Baladul Amiin oo gobolkan ka tirsan howlgalka ayaa waxa lagu soo waramayaa in ADMIS ay uga hortagto weerar gaadma ah oo ay doonayeen al-shabaab inay ku qaadaan qaybo kamid ah saldhigyada ciidamadu ay fadhiyeen labada dhinac ayaa ku dagaalamay agaarka magaalada waxaana ka dhacay dagaal qaraar oo guul weyn ay ka sheegtay ADMIS kaas oo sidoo kale khasaare geystay afyeenka ciidamada howlgalka ADMIS Cornel Cabdullaahi Xasan Ganale oo la hadlay warbaahinta dowladda waxa uu ka warbixiyay howlgalkaas isagoo shaaciyay in ay uga hortageen weeraro abaabulan oo ay al-shabaab la damacsanaayeen ciidamadooda inay ku soo qaadaan ama xiradooda Cornel Cabdullaahi Xasan ayaa shaaca ka qaadeen howlgalkan ay ku dileen ugu yaraan 2 xubnood oo ka tirsan shabaab isla markaana qayb ahaan weerarku gaadmo u ahaa balse iyagu ay ka hortageen sidoo kale waxaa intaas ku daray in gacanta ay ku dhigeen 2 qoray iyo 130 xabo oo rasaas ah kadib markii ay dagaalka ku jabiyeen xubnihii shabaabka ka tirsanaa xaaladda ayaa haatan mid aad u kacsan waxaana weli dhaqaaqay iska soo horjeeda laga dareemayaa qaybo badan oo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose dhanka kale ma jiro wax hadal oo ilaa iminka ka soo baxay kooxda shabaab oo ku aadan howlgalkan ay guulaha ka sheegteen ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa midowga Afrika
maalmihii lasoo dhaafay ee ugu dambeeyay waxa ay wadeen kooxaha al-shabaab ciidamada ka tirsan weeraro gaadma oo ay ku beegsanayaan xerooyinka ciidamada ADMIS iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay leeyihiin waxaana ugu dambeeyay weerarkii khasaaraha badan lagu gaarsiiyay ciidanka Uganda ee ka dhacay Buulamareer. arrinkaas ayaana noqday hadalhaynta ugu badan ee ciidamada AMISOM weerarkan dhibaatada ka soo gaarta oo aad loo hadalhayo. dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ayaa ugu dambeyn isku ballaariyay gobolka Gedo isaga oo ka adkaaday garabkii kale in muddo ahba ka soo horjeeday. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu maamul cusub u magacaabay gobolkan kaasoo hadda ku sugan xarunta gobolka ee Garbaharey iyo degmooyinka kale. maamulka cusub ayaa waxaa hogaaminaya Cabdullaahi Shimbir kaas oo safar dhulka ah ku gaaray Garbaharey kadib markii dhanka hawada laga celiyay ninkan iyo xubnaha kale ee la shaqeeya ayaa intaasi kadib dhaqaaq xoogan ka bilaabay gobolka intiisa kale. abaabulka iyo sidoo kale isballaarinta iyo qorshaha ay la yimaadeen xubnaha maamulka cusub ayaa durbaba keenay in degmooyinka kale ay taageeraan isla markaana ay ku biiraan Jubbaland taas oo dhabarka jabisay xubnihii kale ee horey ugu sugnaa gobolka kana soo horjeeda Axmed Madoobe. degmooyinka laga soo dhaweeyay maamulka cusub ayaa waxaa ka mid ah Baardheere, Beled Xaawo, Luuq iyo Garbaharey oo ah meesha uu hadda joogo gudoomiyuhu. Beled Xaawo oo shalay lagu qabtay shir jilaaid oo ay goobjoog ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka cusub ee Gedo iyo saraakiisha laamaha amniga ee gobolka ayaa gudoomiyaha degmadaas Cabdirashiid Caroog waxa uu ku dhawaaqay in uu isbedel ka dhacay gobolkan isla markaana ay haatan maamul ahaan u wareegeen Jubbaland. gobolka waxaa ka dhacay isbedel waxaa laga gudbay nidaamkii hore oo ay gacanta ku haysay dowladda federaalka Soomaaliya haddana loo gudbayo state uu gacanta ku hayo ayuu yiri gudoomiyaha maamulka degmada Beled Xaawo Cabdirashiid Caroog. sidoo kale waxa uu taageeray maamulka cusub ee uu hogaamiyo Cabdullaahi Shimbir isaga oo shaaca ka qaaday in uu la shaqeyn doono maadaama uu isbedel ka dhacay gobolka. annaga maamul ahaan waanu qaadanay arrintan waana soo dhaweyneynaa maanta bulshada reer Beled Xaawo waxaan u sheegaynaa in maamulka jiro uu yahay mid laga xukumo caasimadda gobolka ee Garbaharey oo uu joogo barsaabka cusub ee gobolka mudane Cabdullaahi Shimbir isagana uu hoosta annaga waan hoos tagno isaguna waxa hoos tagaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland wasaaraddan ay hoos tagto madaxtooyada Jubbaland ayuu markale yiri Caroog. waxaa kale oo uu sii raaciyay annaga oo ka duulayna maslaxida dadka waxaan go'aansanay inaan hadda jaan qaadno ama aan la jaan qaadno maamulka cusub waana inoo muhiim inaan helno qorshe aynu ku doonayno in aynu isku ballaarino oo aynu iska kaashano ammaankeena xasiloonideena iyo horumarkeena waana waxa kaliya aanu u taaganahay sida isagu sheegay. gobolka Gedo waxaa ka taagnaa xiisad colaadeed tan iyo markii gobolkaasi dowladii hore ee hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isku dayay inuu ka gooyo gobolka Gedo markaas ilaa iminka oo 3 sano ku dhow waxaa ka taagan qalaasa siyaasadeed balse hadda wuxuu muuqataa in madaxweyne Axmed Madoobe uu soo afmeeray qalaasaha gobolka Gedo isla markaana uu soo gabagabeeyay qorshaha gobolkaas uu kaga soo horjeeday maamulkiisa. haddase madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale talisada kale ayaa kala shaqeeyay ayaa la leeyahay in la soo gabagabeeyo colaadan oo ay helaan gobolka Gedo in ay ka hoos shaqeeyaan maamulka Axmed Madoobe iyo sidoo kale maamulka kale ee isagu soo dhisay gobolka Gedo. gudaha saxaabada halkaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo.